السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحران جنال كنا دمانتي سو دواada saaxiibayaal caawaya abdeedii ugu dambeeyay ama qodobada marka ugu xisaab badan iyo wali waxa ay ku jirnaa ama ay soo qadanna waa qodobadii kale ee marka ay uga hadlaynay raggii horgalada ahaa ama odayaashii horgalada ahaa iyo kuwa kale oo badan oo ilaa iyo maanta marka ku soo darsoomay meelo badanna ka soo hadlay. horgalada hawshoodu ma yara waa ay badan tahay ama weerarka ay soo qaadeen fursad waxa alxamdulillah ah oo marka la cadeeyay nimankaasi inaysan taladii iyo go'aankii beeshii warsangali aysan shaqo ku lahayn ama go'aankeeda aysan lahayn. waa odayaashii fidigooda ay markaa habeenkii xalay soo qaadanay oo aynu ka hadlaynay. waxa kale oo inta ku soo darsoomay waa kuwa kale badan oo iyaguna markaa horgallo ah oo isla beeshii warsangali ah. reerku waa baaba'ay oo waxa duleystay oo gumeeyay waa horgallo meel walba markaa lacag ka qaadanayay. maanta marka meelaha ugu darnay waxa kamid ah horgalladaas ay ka soo hadleen waxa kamid ah waa magaaladii Dhahar. ilaa iyo maanta Somaliland ayaa ka shaqeysa oo ciidankoodii cid walba ayaa ka shaqeysa. reerku waa horgallo waaweyn haddii ay warsangali noqoto reerka ugu horgalsan ama magaalada ama deegaanka ugu horgalsan ee bahashu ay kuwa fogaatay waa Dhahar iyo meelahaas horta kuuka ah iyagoo si kale waaweyn oo halkay horgalnimadoodu waa another level cid lamida wali ma baynaan arag. horgalnimadoodu waa ay ka tagtay horgalnimadii caadiga ahayd oo dadkii kale waa ka duwan tahayba. tii dhulbaanta xitaa waa ay ka duwan tahay. dhulbaanta nin horgala iyo kuwa cadaqaatayaaloo baxa ayaynu ognahay. sabeeshii warsangali baashu waa degatay oo way ahaatay magaalooyinkii ama deegaanadii ayaa waxa isugu faanayaanba anaa ka horgalsan ama anaa ka horgalsan. waa hagaag waxaan rabnaa inaynu soo qaadano haddaba hawsha sida ay u socotay ama horgalladii xalay aynu u jeednay ama odayaashii horgallada ahay kastoo in la caayaba aysan mudnayn oo odayaal ay yihiin balse haddana waa horgalna waa horgal oo faa'iido ma lahan. in la caayo maahan in kab madaxa laga saaro ayaa istaahilaa. fiidiga aan raba inaan soo qaato bal ninkan ila fiir waa odayaashii xalay nooca isla shaqaystaan waliba isagoo markaa ammaanaya bal ila fiiriya. anuu taxadlay firdhiye wuxuu sheegay inay soomaaliya sanaag kusoo biiro maxaan ku dhahay maamulku dhammaystirmaayo markay sanaag kusoo biirto si alaadkii shalay odayaashu ay ka hadleen aniguna hadalkii odayaashu ma ta'kiidinayo waxa weeyaan waxaan lahaa yani kama mid yihiin de anagu ma jirin meel aanu heshiis ku galayo meel aanu kaga mid noqonin ton waxa weeyaan ergaawa magaalo dhisan dadka la waan duminayn ana waxa weeyaan dad uun yaa macnaha caqligooda dee siiyey inay ku fikiraan inay dumiyaan laakiin ergaawa dumin waa odayaashii maalintii shalay hadlayay horgallada markaa ay wada socdaan ama ay isku fikradda yihiin. horgalkan markaa hadda waxa uu joogaa waa magaaladii Ceerigaabo waa meeshii guryihii beeshii harti markaa shacabkii deganaa inta guryahoodii xabad lala soo dhacay ay ka soo qaxeen oo barakacayaashna bannaanka ay markaa ku yihiin. horgalnimadii odayaasha shalay ayaa isgurub yihiin oo waa kooxda horgallada ah. hadalkii firdhiye ayuu markaa kasoo horjeedaa oo wuxuu leeyahay dhulbahantii warsangali meel ay isugu yimaadeen oo ay wax ku wada qaybsadeen ama ay ku heshiiyeen ama hal maamul ay ku noqdeen maynaan arkin oo wax dhacay oo la maqlay ama wax jiraba ma ahan. balse magaaladii Ceerigaabo ee beeshii warsangali xabad inta lala dhacay laga qaxiyey guryahoodiina markaa xoog looga haysto oo xitaa habluhu marka ay kuba aroos galaan gurigan oo guriga warsangali yacni faanba loo qaato ayaa u dhex taagan yahay. waxa uu ku leeyahay Ceerigaabona waa nabad qofkii raba inuu dagaal ka ridana waa uu qaldan yahay. warsangali dhulbahantana maba heshiin karaan oo iskuma iman karaan. waa caqliga horgalinta markaa ka dhaadhacsan oo ay aaminsan yihiin. keligiis maahan ninkan hadda waxa uu ku guruub yahay waa odayaashii shalay aynu markaa maqlaynay ee horgallada ahaa oo sawirkoodu ata halka ay nooga muuqdo. waa horgalladu way soo dhigteen oo ay tiro badan yihiin. maxay u baahan yihiin dagaal aad u tiro badan ayaa ay u baahan yihiin. okay waxaa kaloo iyaduna jirta kuwa iyaguna reer dhahareeda jira oo horgallo ah oo Dhahar inkastoo calankii Somaliland kama taagan yahayba sida aynu warka ku hayno ama aynu maqalnay bal iyagana ila dhigayso waa kuwane. shirku ay isugu yimaadeen qaybo ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka waxaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee gobolada Sanaag iyo Highland iyo hadallo ka soo yeeray hogaamiyaha maamulka ku-meel gaarka ee Khaatimo oo gaf ku ahaa bulshada reer Sanaag iyo Highland. shirku wuxuu cambaaraynaya hadalkii gafka ku ahaa bulshada reer Sanaag iyo Highland ee ka soo yeeray hogaamiyaha Khaatimo wuxuuna cadaynayaa inuusan jirin maamul ay ku midaysan yihiin reer Sanaag iyo Sool. wallahi tolkay guri baa ku dumay. yani hadda odayaal baynu ogeyn oo horgallo ah oo lacag jeebka loo gelinay iyo waxa hadda kuwa aynu arkayna ee magaaladii Dhahar markaa ayaguna kasoo hadlaya waa horgallo markaa dhalinyaro ah markaa balka warrama. reerkii warsangali inuu baaba'ay oo bahashii horgalnimada ay lafaha ka gashay taasaa markhaati inooga ah. waa oday mid yar iyo mid weyn iyo mid dhashayba markaa kulli xanuun la dhaho horgalnimo ayaa faleembe lagu siiyey oo kulligood waa wada horgal. marka waxa warsangali baabi'iyey oo dadkoodii masiirkoodii iyo taladoodii iyo go'aankoodii inay yeeshaan intaba baabi'iyey
waa kuwa noocaas oo dhalinyarana markaa leh odayaalna leh siyaasiyiinna markaa leh waxaasoo dhan waxa ay marka garan laayihiin ama ay fahmi laayihiin war dadka waxaa noqdo wux isagu markaa leeyahay oo go-aankeeda iyo masiirkeedaba leeyahay ha samaysto qaale iyo wax uu u baahan yahay isagu ha yeesho ma ahan in uu shaqaalo noqdo ama qof la adoonsanayo oo wixii la raba markaa loo sheegayo dadkaas waxay u dagaalamayaan horgalladaasi wax walba u samaynayaan waa isagu jeebka lacag ha u gasho tulkiina ha baaba'o digada markaa ha noqdo oo aan markaa wax dambe la weydiin hawshana halkaa ku dhammaato balse taasi socon mayso waxaan rabaa inaan soo qaato video kale oo aad cajaayib badan oo Axmed Food Cadde oo isaguna ragga hadda campaign ku jira markaa ugu badan inkastoo Axmed Food Cadde laftigiisa waxyaalo badan aan iskaga soo horjeedo balse arrinka beeshii warsangeli iyo dhulbahanta inay hal maamul yeeshaan waa mid muqadas oo muhiim ah Axmed Food Cadde oo markaa ka hadlaya odayaashii maalintii shalay horgallada ahaa iyo hawsha ayaan rabnaa inaan isla aragno iyo xaaladooda markaa meesha ay marayso oo ah mid markaa aan la yaraysan karin oo aan fududayn Axmed Food Cadde iyo videogiisa aan isla aragno iyo arrinta markaa horgallada uu ka dhahay waxaan aad ii sheegay af ka dambeeya baayay adduunkan horgal waa laga tirtiray waa la tirtiray horgal inkii muuse bixi sagootiyo inkii irre soo dhaweynayo hooye inkii waa dhulaftiyo ul fikir asana ka shaqeynayna soo leysanaga mataano shirka ceel bulshada bisha waxa weeye ergadii ee federal balance madaxdii wasiirka ganacsiga Soomaaliya Senator Senesh Bahatinbiye agaasimayaashii xildhibaanadii waxa uu hadda Axmed Food Cadde inoo sheegay waa arrinta shirka hadda ceel buhu markaa la isugu balansan yahay beeshii warsangeli ay markaa isugu imaanayso iyadoo ka tashanaysa aayahooda iyo masiirkooda iyo mustaqbalka markaa dhulkooda iyo go'aankoodaba waana arrinka ugu wanaagsan ee markaa lagu dhaqaaqayo hadda Axmed Food Cadde waliba inoo carabaabe markaa in dowladii federaalkuna wafti ay soo dirto uu iman doono way tawaankaasi taala khaatuna imaaqna kasi kumidoobaya labaatanka July sida wasaaradda arrimaha gudaha sheegtay wasiirka iyo wasiir Axmed waxa weeye labaatanka July maamulka waa mastiraya shanta bishana sanaad baa ku la isugu imanaya khaatuna imaaqna ay walaalihiin baa laga cadeyn doona ergadii dhan baa imanaysa madaxda federaal ka dibaashi soo karkariyay halka soo gaarsiiyay ciidankii waqtiga hawsha halka marayso waxa weeye beefaan bay maraysa waxa soo dhan soo dhamaanay waxa dhashay baa dhiman horgal gabalkiisu waa dhacay wax dhashay baa dhiman horgalna gabalkiisu waa dhacay oo taasi been maaha waa xaqiiq taasoo markaa shanta bisha halka arrinka lagu dhameystay ee lagu bilaabo 10ka bishana markaa ay soo imaan doonaan beeshii dhulbahante iyo beeshii warsangeli ama maakhir iyo maamulkii Khaatume State halkaas oo ay ku midoobayaan hal maamul oo weyn markaa uu ka soo baxayo taasoo dowladda federaalkuna markaa ay diyaar u tahay in aqoonsigii dhabtaha baarlamaanka markaa la mariyo loo codeeyo iyadoo markaa officiala lagu dhawaaqo waana arrinka ugu muhiimsan aynu sugaynay in inta baarlamaanka codkii la mariyo kadibna lagu dhawaaqo taas ayaa saxa maxaa yeelay ama madaxweynaha ado ama ra'iisul wasaaraha ado isagu go'aanka ma lahan ee go'aanku wuxuu ka go'aa waa baarlamaanka ummadii Soomaaliyeed taasna waa ta markaa la sugayo 10ka bisha kadib iyo shirku markuu sii maado oo la midoobo in baarlamaanka Soomaaliya la marsiiyo waana waxa ugu fiican ee ugu wanaagsan horgallada meel walba marka socda go'aankooda mar walba waxa ka dambeeya odayaasha ama reerka talada inta xalaasha u ah ee iyagu markaa wanaagga raba 34 sanadood ku fiirsay oo xilay flex oo musabix flex oo siiray oo ku garaacsan oo soo daahriyaado flex wiilka hooy branchuga dhiigiisa istaarka dhiig laga soo qaaday kadib la saaray jiray wiilka jooga waxa la saaray ka dagaalamay ama gabadha sidoo kale dhiigga lagu shubay dhiigii kii baran baa maanta ka furunta jooga wala saaray jooga lagu shubay soo dagaalamaya dadkan dad wada dhashay dhiig isu shubay kii aan wax weeye dhiig daadinay ama aan la dagaalamayay waxa bad isu ka jirtay siyaasadiisa wax ta 2025 ina ka gaddo sanad iyadoo wax weeye reeriga jooga anway waxa gudnimo ah dad iyagu sheeganaya beeshii warsangeli oo guryahoodii xoog lagu haysto oo magaaladii laga soo qixiyay shacabkoodii oo wali raba in markaa ay ahaan dhulbahanta cadow ah oo warsangelina ay baabi'iyaan dad ahaan dal ahaan iyo dhiig ahaanba hadda waa laba wada dhashay ay rabaan inay kala baabi'iyaan oo ay kala dilaan horgalku marka inuu soo faa'iido lahayn oo axmaq yahay oo uusan mixin oo uusan dhiig markaa walaaltinimo iyo wada dhalasho midnaba aysan ku jirin horta taasaa markhaati idinka ah horgalna meeshaad ku aragtaan waa doofaarkana in la dilo ayuunbaa waajiba doofaar ma daahiro ayaa hore loo dhahay ka horgalladii reerkan intay baabi'iyeen tolkood ku daray dadka ay wada dhasheen ku daray oo weliba maanta iyadoo la kala qaxay oo colaadi dhacday oo la kala fogaaday raba inay dhahaan markaa kaasaa walaal ku ah oo ku dhow balse kii kula dhashay kugu dhiigga ahaa ayaa cadowgaaga ah waxna lama qaybsan karo
waxna lama wada yeelan kara markaas caqliga horgaladu markaa qaabka u shaqeeyaan xashima dhiman isku dawlada loo balana maaqri khatmo midayna isku area waa ka baxayna tikada ila boodada hawada kotoka madaxweynaha markii dhaweynaha waa ku xoqay mashaariicda gabadha buuhooda joogtay gabadha isku xuseenay inaan la kala garan baaqna hadii saaqno heshiiye anana waan heshiino taada waan hanaadaan sida aftiin cadartina marka iyaga iyo dadka iyaga hal calan iyo hal magac iyo hal mabda iyo hal ciidan weeyashaan baaqna maanta dowladda dhisana ay gaabooy markaas ku soo jeesanaya waxaan sifaynaya iminka gudaha sifaynaya oo markii ugu horeysay oo hadallo badan oo uu soo jeediyay ama hadal uu dhahay markaa aan isku raacnay ama aan isku ogolaanay oo inta badanba uu markaa wax xaqiiqa ka hadlay oo arrinta dhabta markaa taalla ah isagoon cidna markaa ataagayn cidna markaa weerar ku samaynayn oo wixii markaa danta guud ahaan ah waana tan loo baahanyay mar walba marka aad dantaada ka hadlaysid qof kale inaad ku xuqatid ama aad eedaysid xitaa haddii uu qalad sameeyey maahan maxaa yeelay eedaada timaado adiga ayuunbaa markaa iskabay oo dhibaatada isu keenay ama horgal adiga kuu shaqaynaya ama mid adiga markaa mas-uulka u ah ama suldaan ama garaad ama wuxuu rabo markaa ha ahaado qofkuna wuxuusan dhibaato usan isagu markaa isku keenin ninna ulama imanayo waxaana muhiima arrinka markii horeba aynu ka hadlaynay ee ahaa dadku tarinkan uu dhaqaaqay ee socon maayo inaysan soconayn oo in laysu yimaado oo la wada hadlo oo wax la gorfeeyo odayaasha iyo deegaanku ay kulmaan ayaa wax walba ka horeysa ayaynu habeen hore markaa ku hadalnay oo videogaas ayaa dii soo daayay waana tan marka maanta lagu ballan qaaday ee ceel buh marka hore la isugu imanayo kadibna shirweyne la isugu imanayo waa jidka saxda ah markaa ay wax ku dhismayaan oo nadiifta ah balse kaale oo hal mar soo duul qab jug halkan imow qaado dowlad baynu nahay ma shaqaynayso marka hore waa in reerkan u wada hadlaa iyagoo midaysan go-aan wada qaatay oo aan ka laabasho lahayn in meeshii la aado la wada hadlo meesha lagu heshiiyo hal maamul la wada dhisto kaas ayaa marka xalaal noqonaya oo wax weyn oo aan markaa laga daba hadlayn ah arrinka kale marka ugu wanaagsan oo ah kii ballanka bixi uu markaa Siciid Cabdullaahi Dani ku sameeyey beeshii Warsangeli ee Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaano uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa oo weliba bishan hadda soo socota aan filayaba in uu ceerigaaba u socdo oo shir dib u heshiisiin iyo hawshaa uu wado Suldaan Siciid markaan waa la isku filan yahay haddii maamulkaa ay dhulbahanta iyo Warsangeli iyo markaa midoobaan ama Maakhir State iyo beeshii Khaatume State ay midoobaan cidna markaa uma baahna 10 Siciid Dani ama 10 maamul oo kale cidna looma baahna iyaga ayaa isku filan go-aankoodana qaadanaya dhulkii markaa laga haystana ayaga ayay mas-uuliyaddu ka saaran tahay inay soo ceshtaan sheekada markaa halkaasi ku dhammaatay horgalna meel walbo aad ku aragtaan hornimayo horgal ma daahiro waa doofaar sideedana waa dil oo faa'iido kale ma lahan ama waddankii ha dhex jooga ama dibadda ha uga maqnaado horgal meeshaad ku aragtaan asxan ha u samaynna videogana halkaasaan kusoo gabagabaynaya kuma dheeraanayno intaynu isugu maadna video lamida iyo wixii abdeeda markaa soo dhaca insha allah waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu